Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc ku saabsan sida ugu dhaqsiyaha badan ee aad ku heli karto murqo. Insha Allah muuqaalkan waxaan ku baran doonaa sida aan u heli karno murqo, maxaan sameeyaa si aan u helo murqo iyo sida aan uga bixi lahayn caatinimada. Magacaygu waa Shimhaad Maxamed, channelka aad naga daawanaysaan waa Shimhaad Xaaji. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, labadaas asxaabtada subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan idinla wadaago mowduucyo caynkan ah. Haddaad tahay qof caata ah, tani waa waddada lagu heli karo murqo iyo caatinimo iyo sida caatinimada uga bixi lahayd. Ma rabtaa inaad hesho murqo? Badanaa dadku waxay u badan yihiin inay iska dhimaan cayilka badan. Aan kuu sheegay sida ugu fiican ee aad uga bixi lahayd caatinimada waa inaad hesho murqo. Murqahaas aad heshay haddaa u isticmaalayso si uu jirkaaga ama labiskaaga u qurux badnaado. Muuqaalkani waxaan ku baran doonaa si aan u helno murqo wanaagsan sida ugu dhaqsiyaha badan. Nala soco, hana ka harin muuqaalkan sababtoo ah waxaan ku sheegi doonaa isbuucba isbuuca ka dambeeyo in aad murqo hesho. Talaabada koowaad, cun cuntooyinka shidaalka murqaha. Cunitaanku waa habka ugu fudud ee aad ku heli karto murqo. Si aan u bilaawno waa in aad cuntaa cunto badan iyo borotiin. Jirkaaguna wuxuu u baahan yahay carbohydrates si uu jirkaagu energy u helo. Jirkaagu ma helayo in ku filan carbohydrates, sidaas daraaddeed ayuu u isticmaalayaa wax walba oo soo galo jirkaada, mana ku kaydinayo murqaha. Cuntooyinka murqaha shidaalka u ah waxaa ka mid ah boorashka, lawska, digaagga, ukunta, kalluunka iyo wixii la midka ah. Talaabada labaad, kordhi dhismaha murqaha. Ma ogtahay in badan oo borotiin oo jirkaagu helo waa in badan oo murqahaagu kor u soo kacaan. Jirkeena borotiinka badankiisa waxa uu isticmaalaa shaqooyin kale sida inuu hormoon soo saaro. Murqahaaguna ma helayaan borotiin ku filan si ay u samaysmaan. Markaa si aad u hesho murqahaas borotiinkooda waa inaad borotiin badan qaadataa si uu jirkaagu waqti ugu helo inuu wada isticmaalo borotiinkaas. Talaabada saddexaad, cun wax badan iyo marar badan. Markaad rabto in aad murqo yeelato waxaa muhiim ah inuu jirkaada helo nafaqo ku filan. Inaad kaliya 3 waqti wax cunto kuma filna. Waxaa muhiim ah inaad cunto quraac culus kadib 2 saac. Inaad cunto khafiif ah. Inaad 3 saacba wax cunto way ku filan tahay jirkaada si uu u samaysmo nafaqo una dhismo murqahaada. Talaabada afraad, diiradda saar jimicsiyada isku dhafan. Uma baahnid inaad qaaddo bir culus ama sina aad gym aado, kaliya samee push up ama orod ama istaag fadhiiso. Talaabada shanaad, biyo cab marka hore. Cabitaanka oo ku badan amino acid iyo carbohydrate waxay ku fiican yihiin dhisidda murqaha. Markaad samaynayso jimicsi uu jirkaagu kululaanayo, dhiigaaguna xoog u socdo, waxaa fiican inaad biyo badan cabto intaadan bilaabin jimicsiga. Waxaa kasii wanaagsan inaad cabto biyo leh carbohydrates iyo borotiinada. Borotiinada waxaa la cabaa ka hor jimicsiyada sababtoo ah waxay u samaysmaan inta aad ku jirto jimicsiga in la isticmaalo. Talaabada lixaad, kor u qaad maalin kasta. Mar kasta oo aad jimicsi samayso ku dadaal inaad raaciso 1 maalin oo nasasho ah. Daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in ay borotiinkaas ay samaysmayaan 48 saacadood kadib. Midda kale, murqahaagu waxa ay koraan marka aad nasanayso, ma ahan inay korayaan marka aad jimicsi samaynayso. Haddaba su'aal haddii aad ka qabto muuqaalkan waxaad ku dhaafi kartaa aragtidaada commentiska qaybta hoose. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, labadaas asxaabtada subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan idinla wadaago mowduucyo caynkan ah.